kulankan oo lagu qabtay xarunta gogosha reer Faqay ayaa lagu bilaabay akhrinta Quraanka Kariimka kaasi oo la sheegay in lagu gol leeyahay culaysyada haysta dadkan inuu Alla ka dulqaado waxaana iskugu yimid waxa garadka culimada diinka aqoon-yahanada iyo dhalinyarada beesha reer Faqay waxay cabasho ka qabaan sida ay sheegeen kursiga golaha shacabka oo ay leeyihiin in loo weecinayo beel kale ayna ka soo horjeedaan arintaasi oo sida hadalka u dhigeen waa kuwan qaar ka mid ah oo arimaan ka hadlaya baryahan aad iyo aad waxa maartay aad u farbatay in la ataago ama maxaa la yiraahdaa beesha culimada reer Faqay kursiga ay ku leeyihiin wadanka Soomaaliya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maadaama taas ay tahay waxaan tabaneena ama ka cabanaynaa faragelin lagu sameeyay darteeda ileen macnaa qofkan hadlin ama aan wax sheeganin sida caamka uu yahay Soomaaliya waxa la aqoonsaday in qofkii aamusa inuu raali ka yahay wixii lagu sameeyay anagana raali kama nihin waxana lagu sameeynayo waxna lagu sameyn doona intaba mana u dul qaadanayno haddaan nahay beesha culimada reer Faqay haddii ay jirto kursi la isla qaybsanayo Soomaaliya golaha shacabka 200 iyo dhowr way hala furo aan ku qanacna anaga laakiin kursigayne al-Faqay in gaar loo soo damco in gaar loo dulbiyo yeelimayno waxaana ka dacwoonaynaa haddii alla ilaahu dacwoonaynaa waxaan u dacwoonaynaa beesha caalamka ka dacwoonaynaa ma dhaafayno United Nations ka dacwoonaynaa ma dhaafayno haddii la dulbiyo waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaheena aanu jecelnahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble arinta inay soo fargeliyaan maxaa dhacay marar badan ayaan cabashadan gaarsiinay waraaqo badan ayaan gaarsiinay ilaa ay hadda wax jawaab aan hayna mala marka tan waa tii ugu dambeysay wadanka ama dhaqanka Soomaalida waxa ka madax banaan in culimo wixii la farageliyo waxaan aragnaa in la isku dayayo inuu socdo isku day lagu faragelinayo kursiga beesha culimada reer Faqay mana ahan wax mudan in la isku dayo intaas kadib markaan runta idin sheego waayahan waxaan ugu socotay faragelin aad iyo aad u weyn mana aha mid hadda soo bilaabatay 5 kursi aan hadda noo soo heeray anakoo 9 kursi lahayn 4 kursi aan naga geeyay maxaa la koonfur galbeed inteeno la wadaa maananka mid ahayn anaga qabiilada shalay idoo nol dhahay 25 faatihiin aan ku sabarnay haddii 25 kii ku sabarnay inaan hadleen nol arki ma ahayn nagula kartunto ma yeeleno mana yeeli doono haddana ma yeelin mana yeeli doono hadda kadibna cid ka qaadano Bashiir Maxamed Cabduqaadir ayaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedka laga soo saaray kursiga Hoob 34 oo cabashadiisu ay taagan tahay markii beesha culimada Faqay reer Faqay ay aragtay arrimo fargelin ah oo aan ku wanaagsanayn anshaxa iyo dhaqanka kuna lug leh isku diyaarinta howlaha doorashooyinka oo maalmahan ka socda dalka gaar ahaan beelaha iska leh kuraasta banaadiriga ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwaasi oo si bareer ah loogu tagrifalayo arrimaha ka soo horjeeda dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya iyo shuruucda dalka u degan haddii aanu nahay beesha culimada reer Faqay ee ku fadhida kursiga Hoob eber 34 waxaa fargelin toos ah nagu haya shakhsiyaad sheeganaya inay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ay ka dhex sameeyeen beesha odayaal been abuur ah oo gacan ku rimisa isla markaana u sameeyay warqadda aqoonsiga ID ujeedadooduna ay tahay xulista ergo ay doonayaan inay ku boobaan kursiga beesha culimada reer Faqay ay leedahay ee Hoob eber 34 waxay sidoo kale ku howlan yihiin in la furo kursiga beesha culimada reer Faqay oo ah kursi lama taabtaan ah oo beelaha banaadiriga dhexdooda ka mid ahayn kursi hore loogu soo tartamay sida la ogyahay Soomaaliya waxay wax ku qaybsatay hanaanka 4.5 kaas oo micnaheedu yahay awood qaybsiga qabaa'ilka Soomaaliyeed ee ka kooban 275 kursi ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kursi kastana waxa ku astaysan jufo ama qabiil Soomaaliyeed oo gaar ah haddaba guddiga doorashooyinka kuraasta banaadiriga siid waxaanu ku kalsoonahay in aysan marnaba ku xadgudbi doonin dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo habraaca doorashada dadban
kuraasta golaha shacabka ee 2016 oo saldhig u ah hannaanka doorasho ee heshiisyada madasha wadatashiga qaran ee 17 Sebtembar 2020 17 May 2021 iyo 22 Agoosto 2021 isla markaana damiirkooda waa guddiga doorashooyinka banaadiriga damiirkooda uusan siin doonin in kursi ay leedahay beesha culummada reer Faqay loo xoogo beel kale. waxaan kaloo si adag ugu digaynaa in guddiga aysan diiwaan gelinin nabadoon been abuur ah iyo ergo aysan soo xulin nabadoonnada saxda ah ee beesha culummada reer Faqay. sidoo kale aysan guddoonsiinin shahaado musharaxnimada qof aan u dhalanin beesha kana haysan caddayn guddiga nabadoonnada soo jireenka ee asalka ah ee laga yaqaano beelaha banaadiriga. waxay beesha culummada reer Faqay aad uga walacsan tahay arrimaha soo ifbaxaya ee ku aadan furista kursiga beesha ayadoo ujeedadu ay tahay in la dul saaro beel kale oo aan isku xuquuq iyo deegaanba ahayn. gabagabo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble beesha culummada reer Faqay waxay ka codsanayaan in aad soo fargeliso arrimaha aan soo xusnay adigoo fulinaya ballanqaadkaagii ahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran. mudane ra'iisul wasaare Roble waxaan kaloo ka codsanaynaa in aad wax ka qabato shakhsiyaadka sharci diidka ah ee faragelinta ku haya beesha adigoo fulinaya mas'uuliyadda gaarka ah ee ka saaran kuraasta banaadiriga. ugu dambayn guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxaan ka codsanaynaa in iyaguna ay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah arrimaha ka dhacaya hoostooda. wabilaahi tawfiiq.